wixii aan ku soo burburnay ayaa maanta sameynayna sidee markaa rabnaa dadkeena inaan qurux badnaano. laakiin waxaan la yaabay dadka waxaan ku yiri bal iga sheekay aniga wadankayga qurux badan ma soo gaarin, bal iga sheekay wadankayga sidee ku ah wadan qurux badan oo cisiga sheegay dawladda Imaaraadka xilligii sharafta iyo qiimkii cisiga aan lahayn wixii sharciga dadweynaha hoose ay ku qortay in si fiican dhigaysan in qof Soomaali ah uusan ka shaqeyn karin maxaan ku dhaqitaanka masquulaha ciidanka Soomaaliya wuxuu yiri anaka ma taqaanaan waxaan nahay libaxyada Afrika waxaan ku qabsanay jirjirada aragto oo micin feedkooda adiga 14 maalin baan ku qabsanay askari ma hadlayo qalbigiisa hadlayo qalbiga askarta waraas waxay ku leeyihiin waxaan ahay anigu dhaxantii qabowgii idinka siyaasiyiinta mid baa idin sheegaya laakiin ma taqaan waxaan ugu sameeyeen salamuna kharbahna dunya wa qalu anna jil fashil ya akhi kareem intaan horta madaxda soo idinka waxa tii dhalinyaro fashilina laakiin see fashil kuna maxay la adiga ayaa wadanka waxaan ugu soo salaamtay ugu soo kurisay wadan burbursan baan ugu soo kurisay adiguna waxa lagu soo kuriyay wadan qurux badan baa lagu soo kuriyay. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولالك عبد الرحمن وحار مانتينا كلو دايو فرين كسو قاضي ولالك قلبيسا وحنا كسو عطا قف والبو الصوماليا فالله هدي فرين تاني كسو قارتو فالله إيقا قارسي وقف والبو أد قارسين كرتين فرين تاني وامحين فرين تاني وحي كلها دهي تاريخ دا وحا الله برتا دعدد الله بيريا tagtada loo baafiyaa kaskaagu inuu bogto abkaa badalku ka tagay intuu ku baraare iyo intii baasaha la ahayd si aan bari loo qaldamin. ها والله وحان دريم يا ما أنت أني عادي إن نجح خضنتهاي صوبت تاريخ الله برتم تاريخ ذا محلنا تاريخ وانا قانا لكن تاريخ صوبت الله برتم أنا قانا أملانيا ها والله صوبت تاريخ الله برت وحكى لماها إلا وحوا أبوان كان صومالات وشيء صوبت تاريخ الله برت وحواي أبكى بدلكو كتجي يعني أو ياشا تاريخ ذا كتجين وحال الربا أنت كبر رأي وحو يعني كونا سنة كهر مرن إن أدبرتيد أو لتي ماتد أنت باسه لاد أنت حمانت لهاد اللي ماذا إن إسكدر سيدات كاجي هوري واي سبب سيادة بريء قلدمين سو هدي أني أعرفنا تاريخ وحنا أبرنا وحواي وحي وناسنا أدبكن اللي ماذا إن الله دي معنا وحي حماء اللي ماذين إن إسكدرنا وهدي أعرفنا بردين إن محن كل يروح بناتهم لكن والله وحنا كذا وأنا ما أنت إنده بكوارك تاريخ حماء أدبكن هذا كور اللي ماذين إن تيولي أن سمعنا مركز ندرس بحلي بروا إن أقرح بنانسا ما نقرني والله قابك إنه يقرح بنانسا هدي خلت كأوياش السمين أن ولي أني أدي سمعنا محن كهلا وحن كهلا ودنكي wuxuu ahaa wadankii Soomaaliya ayuu ahaa macni wadankayga 1990 asagoo cisi iyo sharaf iyo qayim leh ayuu wadankayga iga burburo waxaan la igu soo koriyay maxaan ku dhahaa rabshad iyo waxaas la igu soo koriyay laakiin waxaan maqlay oo dhowr jeerna aan maqlay wadankaygu inuu ahaa wadan cisi iyo sharaf iyo qayim leh markaasaan waxaan dadkii weydiiyay oo kii wadankayga wadankaas qayimka iyo sharaftaas cisiga leh buu ahaaye maxaa burburiyay wadankayga waxaa lagu yiri wax kale ma burburin ilaa wadankayga waxa buriyay nin qabiilaysta ah mid siyaasadda qabiilka soo xirtay iyo mid kursi isku dhajiyay dadkaas ayaa يا كلا أحد يا كلا شعلسي تذكر ما دام عذر ناس اللي مادين صادرت أي وطن كايو قرح بدنا لبربر هذا لكن صار أنت حنوك بدنا وحاول ما أنت حلقان أشجنو لباتكم معين لاتني كود معين لوك لاتني كود وحي وطن كايو سوبر بري أيا ولي محن كده منا مركم واحد يجي سوق سنة عادي سوق سنة بري وطن كانوا قرح بدنا لا والله لكن سبحان الله يا أبي dadka waxaan ku yiri bal iga sheekay aniga wadankayga qurux badan ma soo gaarin bal iga sheekay wadankayga sidee ku ah wadan qurux badan oo cisi iyo sharaf iyo qayim leh ha Allah waxa lagu yiri Soomaaliya xilli waxa jirta adduunka ugu sareysa lagu yiri waxa jirta Soomaaliya xilli maxaan ku dhaha cuntadeeda maxaan ku dhaha adduunka loo gudbiyo Talyaani iyo Carabi meel walba loo gudbiyo bal maxaan ku dhaha wadanka Norway hadda ku noolahay nool nin Suuriyaan oo yiri mooska adduunka ugu macaan aan cunay wuxuu ahaa oo Suuriya ugu imaan jiray mooska Soomaalida ayuu ahaa ha wallah xilli waxa soo maray Soomaaliya يعني دولتها ما أنت إمام محن كلها عربت أو قارك محن كل ودن كنا عادو يتشاچوس نمد يدباتو كودا حل واحد صامري إن قاعد سنترين بل أنك محن كلها وحقودين كنا وحنا الشيء سياد برا أيام مالي ما المها كمية عربت وتيجي مركو عربت تيجي هذن وصانق وحنا ودي وسياد برا محل سو عربت وحير وراني ما سو أرك ودمه بل وحن سو أرك الشركة ذا يعني ميلا أنا وكوكنا أحسن كريان سو أركم ها ما أنت الواحد كذا من دبات ودن كودا بل وحنا الشيء الدولة الإمارات حل شرفت يقيم كي عسى على الهن وحي الشرعي قد معني هوس كو قرتي إن سيفي عمل جسد إن قف صومالي وسن كش قين كريم حان كل دقيقتان كمسخولها
xilli waxaana soo maray dowladda imaaraadka sharcigeeda hoose uu ku qoran yahay qof Soomaaliya looma ogolaan karo inuu dhaqo maxaan ku dhaha masquulaha maxaa yeelay dowladdaas waa dowlad qiyam iyo sharaf iyo ciziga leh tolbaay maanta maxaan sameeyaa maanta masquulaha iyo meel ka hoos ayaan dhaqaa Soomaaliya waxa way markii maxaan ku dhaha dowladda Afrika ugu adkeed Ethiopia ee ku fakari kartay macni ku fakaraysa Ethiopia ma jiro wadan ku yaala Afrika oo intuu adigu kugu soo duulo markaasna wax ku gaarsiin kara Ethiopia waxay isku haysatay inay ahayd libaaxa Afrika laakiin Soomaaliya waxa ku tiri been ba sheegaysaa maxay ilaa ku cadeynayo ku saabaqo 97 markuu dagaalku dhacay maxaa ku dhacay Ethiopia waxaan u sheegnay iyaga inay sayn libaaxyo bal ay yihiin bisad qoyday sadarta xataa waxa la sheegaa jigjigo ومجال بورنا أنا ولي ما أعرف لكن ومجال بورنا وحنا لا شيء حلقة تري معني عيدك إثيوبيا مرنا بس يسبهن عيدك الصومال أيام تشيم محن كذا معني تقبسنت المحيلي عاد بالفيسكو أتكا لكن عيدك الصومال لو كثير أنا كنا متقانا وحنا اللي بحيد أفريقيا وحنا كو قبسنا تشيرا أرتو عند الفيسكو أدية أفر يتوام على باكو قبسنا يا الله يعني حلو واحد جرتي وحنا وعطني يعني إثيوبيا يجين بالصدق أنا كنا أنا اللي بحيد أفريقيا أنا حلقة عسكرية هذه اللي وريسل لها أصيغ عسكرية قلبي سهدو هذا لها متقانا وحنا كلها لا أنا وحنا عسكري عسكري عسكرته يا عسكر والبو من أسمع هدو هذا لها عسكري ما هذا قلبي سهل قلبي عسكرت صور أسوحي كليهين waxaan ahay anigu dhaxantii qabowgiyo dabicda sarroobka waxaan u dhaxtaagan ahay dadku dhamaantood jiifsaday dhabayaashu dhowraa calan dhowrka suran iyo dhulka hooyo weeyaan warkaan ku soo gabagabeeyo xilli waxa soo martay Soomaaliya cisi iyo sharaf iyo qurux ay ku nooleed wadankeesa oo qurux badan maxaa iga burburiyay waxa waaye waa qabiilayste iyo mid kursi isku dhajiy iyo mid baan ii sheegay wixii aan ku soo burburnay ayaa maanta sameynina sida marka rabna dadkeenu inaan qurux badnaano sidee u rabnaa inaan qurux badnaado idinka siyaasiyiinta mid baa idin sheegaya maalin waxaad meesha soo istaagtaan hadheysaan dhalinyarada ma kacdaan dhalinyarada maxaa saatiin sax waay laakiin ma taqaan waxa nagu sameeyeen sallamuuna kharbahna dunya wa qalu anna jil fashil ya akhi kareem inta noorta ma hadheysaan idinka waxa tii dhalinyaro fashilina laakiin see fashil kuna maxay la adiga ayaa wadanka waxa nagu soo salaamto nagu soo kurisay wadan burbursan baa nagu soo kurisay adiguna waxa lagu soo kuriyay wadan qurux badan baa lagu soo kuriyay hadii aan rabna dadkaygiyo inaa maxaan ku wax maanta ku jirna aan ka baxno hal mid baan u baahnaa wax kale waxaan u baahnaa waxa waay taariikhda inaan barano khaladaadkii sameyn jiray dadkii naga horeeyay hadii aan sameeyno waxaad ogaataa brideen waa farxoon badnaanaysaa brideen waxay qurux badnaan kartaa markii aan ka tagno khaladaadkii ay soo sameyn jireen dadkii anaka naga horeeyay dadkeegii wanaagii sameyn jireen alla nimaano markaas ay qurux badnaanaysaa maxay wallahi wax maanta imrukii waxa waay social media markaa fiirisay qof wuxuu taageeriyaa farmaajo mid wuxuu taageeriyaa mid khair mid wuxuu taageeriyaa Sheekh Shariif mid وتايرن دمانتودنا هدي ما أنت قلبي ولا فر لها إلا ضجر إله ونحر استمويان دمانتو قبيلة يعني قبيل درت أي كنت هجيران طلباي وحن قصة بربري وضن كي عسي شرفت كلها أي كبربري أي ونسمينيا هذا مو حن يدك عشان يعني ما نبغى قصة هذا إن وضن كي يقرح بنانيو تاريخ وحلا برتا وحواي أبكاب بدل كوكتي أنتو كبرى رأيه أنتي بحسها لهدينا برتد واي سبب سيادة برئو قلدمين وحمر كتاتك عند درداري من كوسينيا قفنا كوتش على قبيل قفنا كوتش على كل أحد قفنا نحسود ويسن إلا واحد تاجرت أسود ويستا كي كل مقضين وداعي هاي أنت أصلا على سنة ذنوب ذاقو فضلا عن كتجن قبيلك ما أقام والله إلا واقع شيء إلا هذا وحمق لا قبيلك عن كتجن مر وحمق لا قبيلك وحفي عمها والمحن قادر لنا وانا قبيلك وحفي عمها مسوحة أنا قاعدين ناس شعب يعني أبوانك محاكل عربت ويري لقد أسمعت ولو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي وحوير دد واحد معني هدي إجراء ضد نور ومقر لها ينقل لكن والله وحير ما بجرى قف النور الله قال وحن لنا يا مانت الصومالي ما بجرى قلب النور الله قال نكر اسكت قبيلك محايل كل سبب قولي إلا واقع بربرنا إلا واقع سحروني إلا ما أنتو حلها قبيلك اسكدايا هذنا اسكمدينو مدى قلوبتين وإمتين منا مقلان وحلها قبيلك اسكدايا لكن مرة جاني قلوبتين إن دمتين قلوب شر محان كلها صوماليات أيا نقول الله قلوب مسلم أيا نقول الله قلوب إيمان أيا نقول الله وحان رجاني مالي مع المحكمة إن قبيلك يعني قبيلك وحنا مع القبيلات ديني أكتنا كلماته أيا رجاني يا أنا قادر أنت استحن وهالله لكن سوى الله وحكى لما إلا وحياتها وناك أنا شعل نفتي هذا يا هذا وأنا ما سنتي فضلا سيشة قريقك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.